wadamada ku yaala geeska Afrika waxa ay wajahayaan loolan xoog leh oo u dhaxeeya quwadaha waaweyn ee dunida. Istiraatiijiyada dhaqaale iyo tan military ay leeyihiin dalalkan ku yaala geeska ayaa hadda u muuqata bilowga dagaal qabo oo aan mustaqbalkiisa la saadaalin karin. Saamaynta isbeddelkan ka jira wadamada Soomaaliya, Djibouti, Ethiopia iyo Eritrea waxa ay durba noqotay mid soo shaac baxday. bilowga saamaynta arrintanna waxa ay iminka gundaha dhigatay wadamada Soomaaliya iyo Djibouti oo ahaa saaxiibo dhinacna aan ku kala tegin marka laga eego dal ahaan, dad ahaan iyo diin ahaan. Xiisadda iminka u dhaxaysa labadan wadan waxa ay ka dhalatay booqashadii madaxweynaha Soomaaliya ee Asmara iyo baaqiisii ahaa in cunaqabataynta laga qaado wadanka Eritrea. Djibouti oo qabta in dhul iyo dadba ay Eritrea ka haysato kuma qancin baaqa madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxay arrintaasina ku tilmaantay mid naxdin leh oo aan la aqbali karin. Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo bartay siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah ayaa qaba in faham la'aan ka haysata hoggaanka Soomaaliya isbeddelkan ka socda geeska Afrika ay sabab u tahay xaaladda maanta taagan. aniga waxay ila tahay in arrinka dhacay inuu yahay arrin aan ku talagal ahayn, laakiin la dhihi karo waa waxa Soomaalida ay dhahaan khatif siyaasadeed ama si aan ku talagal inuu dhacay. Si kale hadii loo dhigo waxa u sababahay ayaa laga yaabaa in aan hoggaanka Soomaaliya aanu si fiican oo mug leh u aqrin calaaqada ka dhaxaysa ama xiriir ka dhaxaya waxa ka dhacaya geeska Afrika iyo waxa ka dhacaya dunida Carabta iyo guud ahaan Soomaalida ee guud ahaan caalamka, iyo sidaas oo kaleeto si gaar ah inaan xog ogaal u ahayn dhibaatada u dhaxaysa Eritrea iyo Djibouti. taasa waxay keentay marka si aan yani fiicneen ma dhahayna, laakiin si laga haboonay inuu u dhaqmo hoggaanka Soomaaliya, taasoo ka xanaajisay shacbiga iyo dowladda Djibouti. marka arrinkaas waxaan dhihi karaa anigu aan ku soo koobi karaa inaanu ahayn khalad lagu talagalay, laakiin xagga aqoonta iyo fahamka dhacdooyinka ka dhacaya geeska Afrika iyo bariga dhexe iyo xiriirka ka dhaxeeya iyo raadka ay ku leeyihiin wadanka Djibouti iyo Soomaaliya waxa ka dhaxeeya sidii la isugu xiri lahaa inaan si fiican loo fahmin. dadka la socda isbeddeladan siyaasadeed ee ay gadaal ka riixayaan wadamada ugu awoodda badan caalamka ayaa ka midaysan aragtida ah in Soomaaliya ay leedahay saaxiibo wanaajinta xiriirkooda aanay marnaba dayici karin. tilaabada ay qaaday dowladda Soomaaliya ee xiisadda kicisana aanay ahayn mid ku talagal ah, hase yeeshee ay arrintan ku dhacday farsamo xumo haysata dowladda Soomaaliya. marna dadka Soomaaliyeed raalina ku noqon maayaan mana aqbali karaan in Djibouti lagu gabood falo heshiis kale iyo dawlad kale ama lala simaba. sidoo kale dadka Soomaaliyeed waxa meel weyn uga yaalo dawladda Turkiya. marka xiriirro waxa jiro aslan dadka Soomaaliyeed ama shacabka Soomaaliyeed aysan marna gorgortan ka galay. waxaan anigu isleeyahay marka inaysan khilaaf iyo ahayn ismaan dhaafe farsamo xumo ay tahay, laakiin arrin dawladda Soomaaliyeed ay ku tala gashay ama u qasaday inaysan arrintaas u ahayn. waxaan filayaa farsamo khaldantay ama arrin farsamo inay tahay. waxaana dadka Soomaaliyeed ay sugayaan sida ugu dhaqsiyaha badan in arrintaas loo daweeyo. Soomaaliya oo iminka ka soo kabanaysa colaado iyo dawlad la'aan muddo ragaadiyay ayaa hoggaankeeda looga baahan yahay inay la yimaadaan istiraatiijiyad ballaaran oo ay kula falgeli karaan isbeddeladan socda, kuwaasi oo haddii aan si qoto dheer loo darsin saameyn ku yeelan kara dowladnimada Soomaaliya. waddankaani oo waxaan u jeedaa waddanka Soomaaliya loo yaqaan adduunka taqaan markuu dumayay sideetamaadkii inuu dumo Soomaaliya waxa u sabab ahayd isbeddelkii iyo dabayshii siyaasadeed ee adduunyada ka socotay ayuu la jaan qaadi waayay. si kale hadii loo dhigo hoggaanka Soomaaliya ee sideetamaadkii jiray ilaa sagaashamaadkii markii uu dhacay isbeddelkii adduunyada oo dagaal ka qabay oo dhamaanayay oo taxawul mataqaana siyaasad dawli oo dhacay ayay Soomaaliya fahmi weysay raadaarka ka dhuntay. haddana mar labaad waxa muuqanaysa
in haddana Soomaaliya ay ka dhumayso raadaarka mar raba inaan isku xiriiriyo hoggaankaas iyo hoggaankan laakiin xaaladaha ayaa isu eg oo geopolitics ah sababtu waxay tahay shalay waxa playerska ahay oo geeska Afrika ciyaarta siyaasadda ciyaarayay Addis Ababa maantana waa ayadii shalayto waxa ciyaarayay ciyaarta mataqaanaa geopolitics mataqaanaa geeska Afrika waxa ciyaarisay Riyadh maanta shaqay kale haysa waxay soo wakiiltay Abu Dhabi korna waxa ka jira meeshii ay shalay ay ciyaarayeen isku haystaan geopolitics Mareykanka iyo midowga Sovieti maanta waxa isku haysta Mareykan iyo Shiina isku haysta wasiir dawladii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya Dr. Maxamed Nuur Gacal ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya looga fadhiyo in ay arrintan si degdeg ah u xalliso Soomaaliyana aanay xilligan u wanaagsanayn inay gasho dagaal siyaasadeed oo hor leh ugu dambeyntii waxaan dawladda Soomaaliya ka rajaynaynaa kana sugaynaa sida ugu dhaqsiyaha badan in annaga oo ku jirna hadda Soomaaliya inay wax la qaybsato isbedelada ka socda geeska Afrika waxaan suurtagal ahayn inaad gasho muxuu ahay dagaal siyaasadeed adoo ka soo tagtay qofkii aad mahmaha Soomaaliyeed waxa jirta la yiraahdo qofka aad goobta ka rabto guriga loogama soo tagto marka waxaan dawladda Djibouti aad ogtihiin ururada aan ku jirno dhan iyo muxuu ahay ha ahaato kuwa qaramada midoobay ama kuwa goboleedka ama kuwa deriskaaba markastaba u taagneed qadiyadda Soomaaliya inay difaacdo si kastaba ahaatee dawladda Soomaaliya weli wax wara kama aanay soo saarin hadalkii dhawaan ka soo yeeray dawladda waddanka Djibouti kaasi oo ahaa in ay aad uga naxday baaqi madaxweynaha Soomaaliya ee ahaa in cunaqabataynta laga qaado dawladda Eritrea Cabdullaahi Axmed Nuur Universal TV Muqdisho